umad Soomaaliyeed waxay salaam meel kasto joogtiin waa walaashii Maamad Maajid oo ku salaamaysa bartay social media ku leedahay Maamad Maajid official markaan ka soo tagna salaanta oo laleeyahay Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa markaad aragto fariintayda ay soo gaarto inaad subscribe ii saarto oo share gareyso maalin kasta waa idinka baryaa laakiin ilaa hadda waxba idinka ma hayo marka walaalayaal waxaan idinka rabaa inaad subscribe-ta ay ugu caawisaan maanta dad iska subscribe ugu caawinaysiin waxa marka waxaan ina subscribe igu caawisiin iyo share gareysiin like ii saartiin maxaa ku dhahaa barnaamij kasta oo aan ka hadlo aan soo dhigo kulli taa aniga wax Soomaalida dhibaateynaya ma soo dhigayo laakiin waxaan rabaa inaan walaalayaal markaan freemiga aragtiin aad subscribe ii saartiin midka xiga aan rabaa inaan maanta ka hadlo waxay tahay barnaamijka ku saabsan kufsiga gabdhaha loo geysanayo sababtoo ay aniga hooyo Soomaaliyeed ahay gabdhaha leeyahay wiilal leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahoda iskale amaani igu yihiin marka waa ku qasbanahay inaan markasta ka hadlo dhibaatada gabdhaha loo geysanayo waayo aniga waxa dareemayaa marka arko gabar dhibaataysan gabadheeda mustaqbalkeeda kululay sababtoo ay wali Soomaaliya ahay Soomaaliya u baahanahay Soomaaliya u socdaa Soomaaliya lagu duugay hadii Ilaahay ii qadaro marka qof gurigiisa haduu ololaayeen kulay soo ku nasto ma jirto amrina mana nasan karo inkastoo aniga qurbo ku noolahay in badan aan joogo hadana waa dareemi karaa dhibaatada gurigaaga markuu ololaayo kulay gurigaaga markuu ololaayo waa dareemi karaa gurigaaga intuu ololaayo inuu ololaayo sida xaqiiqada dadka inay wada ogyihiin marka gabdhaha Soomaaliyeed horta walaalayaal waxaan leeyahay dhibtiga soo gaartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uga baryayaa ummadda Soomaaliyeed inuu Ilaahay iyo waalidiinta gabdhahaas dhalay inuu Ilaahay samir qaali inuu siiyo Ilaahay uu xaqooda u soo ifiyo maalin ay ahaataba adduunka aakhiro qofka adduunka ku waayay aakhiro ku waaynin oo xaqiiqa ah oo la ogyahay mid kale horta qof horta waxa la rabaa markuu Soomaali yahay ama uu Kenyan yahay ama Ethiopian yahay qofka wadankiisu inuu horta ku weyn yahay marka hore markii laga soo tago ciyaarta iyo tuuganimada iyo waxyaabaha ay qashinka ay sameynaysid horta inay Ilaahay marka hore u laabataa marka labaad waa inaad wadankaaga waa inuu kugu yahay wax muhiim ah oo maxaan ku dhahaa waa inay Soomaalinimadu horta kugu weynta adduunka meel kasta ka joogto taas horta muhiimada because qofka waxa lagu xaqiijin karaa inuu wadan yahay ama uu qof dhaladay yahay inuu wadankiisu madaxa u saaran yahay hadii laakiin ummadaada aysan madaxa ku saarneen oo dhiigga Soomaalida ku jira oo san kugu jirin oo wax dhibka Soomaalida qabsada aad ka damqanaynin wax Soomaali u ogtahay waxa u tahay ma jirto qofkii damqana u baa ogaan karaa inuu qofkaas qof Soomaali wax u qaban kara inuu yahay marka ka soo tago sheekadaasi Soomaalida kufsi aniga horta been kuma sheegay wadanka burbursanaa dhashta oo dawlad lahayn saasay tahay hadana waligeey iyo Allahay waxa maqlay maqlooya war aniga wadankaas madaxweyne waxa uu ayadu ka jirnaa aan iskuul soo dhigtay aan akhrisanay dugsi akhrisanay maxaa ku dhahay soo ciyaari jiray ku soo barbaar waliba degmooyinka ugu jiiqda iyo maxaa ku dhahaa badan jaamka badan oo yaani waxa ku dhashay marka la dhigi karo magaalada way ka baxsan yihiin sida degmada Yaqshiid oo kale gaar ahaan suuq xoolo kala ku dhashtay marka saasay tahay anaga waxa lagu jirnay waxa mari jirnay wadada la dhaho dabaqinka mari jirnay waa sii goon jirnay ex control ka dhici jiray ama shada baastada iskuulaanka iska soo dhigan jirnay waa imaan jirnay ma marka qaar xataa habeenkii sawir iska soo galgal jirnay waa iska waqti iska soo qaadan jirnay bulikan iyo Allahna waxa la sheegay ama maqlin marka Soomaalidan hadeertaan laga sheekeynayo oo wadanka qasayso mid dhawaabo Soomaali aniga bacdiga dhawaato wallahi bila ma aqaan waxa ku tilmaama ma garnaa sababtoo ay wiil hooyo Soomaaliyeed wiilkeeda ee dusha ku soo qaaday horta hooyo walba ay duceyso waxa ku duceysataa Ilaahow kay gabar Soomaaliyeed faraxumeen laha oo dhibaato u geysan laha oo waalidiin Soomaaliyeed ku oysiin laha ama muslimiina ama meel walba adduunka ka joogan ku oysiin laha Ilaahow iska baaqda aan dhalin sababtoo dhalashadiisu maxay kugu taraysaa waay waxay dhalashadiisu kugu taraysaa malaha murug habeen maalin caday oo mugti oo kaaga dhigo habeen maalintu habeen kaaga dhigaa wuxuu kaaga dhigaa murugo markuu murugada ka bato maalintii waxay kugu noqonaysaa habeen sababtoo adiga jaama ku jirta dhibaato dareemaysa waxay way koreen uu ka weyn yahay oo wax ma ku tarayso waana wax waa ka diida marka waxa waaye qiiq la isku noqdo at least waxa rabno uu ku baaqay ahaado oo sadalan hadaan dambaabay Soomaaliya way qaban kartid marka Ilaahay horta ilmaha noo badbaadiyo wiilasha Soomaaliyeed Ilaahay xaqaha tuso kulli anigu dhihi maanta nin Yahuudi ama nin Amerikaan ah xamar gabar ku kufsaaya ma dhahayo waxa uu gabar kufsaaya waa walaalkeed warwiilow gabar markaad kufsi u aado guriga jooga mar xisaabta bal adiga gabaraha kufsi u aado caawa programkaas marka wadada sii socoto oo samaysato oo go'aan ku gartad gabar soo kufsato guriga jooga ma xasuusid walaasha guriga joogta nin adoo kala hooqaa in guriga oo kugu dhagan degan yahay marka adiga qiimay bal adiga gabar wala ay weerid dhalay aad kufsi u aaday wala la dhashay sumcad iyo nafs basar u baahan oo og inuu gabar walaashiis uu ku intifaaci doono ama uu meel ka soo saari doono ama uu ka soo saari doono ama uu garab ka dhigan doono marka adiga marka qorshahaas ku fakarto waxaad ku darsataa qorshaha inay walaasha qaa'in kale oo adoo kala oo iyadan u la bixi karo horta xisaabta ku darso
wayna kugu dhacaysaa hadday maanta kugu dhicin maalin ay kugu dhacay axdi iyo ballan ilaahay hortiis aan kaaga qaado waa haddaadan maanta ooyin ood maanta wiil Soomaaliyeed aad ku ooysiis aad go'aan ku gaartay maalad adigana ooyin doontaa haddaadan gabdhaha walaalaha aad iska dhaafin haddii aad adduunyada waxba kugula dhici waayaan maseegta imaan doonto ayadana oo ah tii loo badnaa markaad tagto maadan xisaab lahayn maadan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dil iyo nolol leeyahay aysan ku xisaabsaneen ma waadan ogan inay laba malaa'ig ay garbahaaga saaran yihiin ya ma xisaab adigu ma lihid budgetkaba kuma jirtid miya inaad dhimanayso inaad maxaan ku dhahaa aad xisaab marayso inaad siraadkii marayso inaad cadaab iyo janno leedahay midkood ma ogid wallaahi billahi waad ogtahay laakiin ma baraarugsanid hilaacan ileerarka beenta ay magaalada muqdisho ku dhagan unbaa ku siraan isleeyahay marka walaalo meelan nan lahayn aan la tagi doonto markaan kaaga hadla taas waay madalba ina hadaan ognahay Soomaali hadaan nahay meesha ku nooshahay ixdadaha meesha ay ku yeelaan ma hore lagu soo siibi lahaa dad lagu ciyaaranay banihin laakiin halka dhibo jiro waxa waay wadanka dawlad maanta lagu taami karo oo awood badan la inay ka jirin dadaalkeedana inay yareysanay laakiin saasi tahay ay hadana awood u lahayn inay maxaan ku dhahaa hada ay si fiican ku daba kacdo laakiin xilli waxa la gaari doonaa adiguna aad falkan xun u barato Soomaaliduna ay dawlad caadil inta yeelato oo awood leh xididahaaga la soo siibo sida ansalaatadii ma fahanteen waraani waxa ku dhihi lahaa oo markaa ku dhihi lahaa oo mar labaad ku dhihi lahaa waxa ku jirto kawaanto wiilow noloshaada u nax midda aakhira u nax sumcadaada u nax sumcada ummadda Soomaaliyeed u nax walaasha u nax hooyada u nax gabadhaadana u nax ani maanta fariintan waxa u soo fariistay social media u soo fariistay oo YouTube-kayga ana ayaanta xanuunsana ka maqnaa u soo fariista ka ahaan waay wallahi waa qandeysana waxa waaye 40 jir 20 nin kufsataa shalay yeerisay tii hore la tiicina tii hore oo daraad ahayd ama waxa ku dhahaa dhibaatadeeda ay murug nagu haysay hadana maxaa waaye sheekadan weegi 5 gabdhood weegi 4 gabdhood 6 gabdhood maxaa waaye problemkan ku haysto naag la'aan ma ku hayo naag magaalada joogta ilaahay inta kitaabka quraanka qaado aqristo oo duceysato ilaahay oo gabar guursaday isii ku dheer guurso إلهي أفرنا هذا هو في الأفر وكوبني أفر راتسو هذا واحد كله يسح حمال حمال وقايبي عوضه إلهي التقبيل كودنا وقايبي هذا هلنا قاعدين كرين لكن وحن قاعد يسته وحفي عماها ما في عنا إنا قبل خويا شيء أو سيد أقولنا لورنا لله حنباري إنا مالك استقعياته هرت إلهي أنا إباك هركانو أنا ورت هذا مدحينك وأهلها أما حنكو أهلها إن إيشك أنكو أهلها إن واحد يقول ما أنا هلا أو فرقوا قولي لها أنا ورت ما بكحرين dadka horta dawladda Soomaaliya hal firinaan waa inaan u diro nimankan la xiraayo total hal laga daayo nimankan meesha lagu qabto hal lagu gubo ani taas iga ah ee dignin war nimankan gabdhaha yar ee masaakiinta uqubada ka galaayo ee 6 ku fuulay 24 hours ee xishoodka Allah ka qaaday ya habaarka iyo waayeelada iyo ashadoodu inay ku dhacdo ay cudur inta ku dhaco dhiman waayaan noolaan ma ka baqayaan miya ani waayaan ma ka baqayeen miya ma ka baqaysiin miya ilaahay dhibaato xaqiis ka timid idin ku dhacdo gabdhaha isfaraxumaynayseen aabooda dhaq ku soo koriyaa laga yaabaa inuu bakaaro wax ku wareejiyo miisa laga yaabaa inuu habeenkii asagoo maxaan ku dhahaa caano iyo hilib wada oo u soo qaado oo maxaan ku dhahaa sirac uu ku koriyaa laga yaabaa inuu geel inuu kala baxo ku haminaya laga yaabaa ya gabadhu nin bay magaciisa tahay in adeer magaciisa nin bay tahay muuqaalkiisa nin bay tahay muraayadiisa nin bay tahay maxaa ka qaldan maxaa Soomaalinimada ka qaaday maxaa ku baday Allah ku duleeyay fiidiyowgaas ilaahay waxaan hortiis waxaan ka codsanaa qof walba Soomaali oo fiidiyowgaas gaar walaalo ii share garay inuu yuhuudaas ila gabdhaha Allah u soo diray inay gaaraan rajeynaya maxaa ku dhahaa daladiidas war adinku see wax idinka yihiin war ani waaba yaaba dhiikirma intaan kaman umad inaan ku ridin rabtiin maalin kasta gabara noo soo yeerayso Soomaaliya isna maxay ahayd dawladda madadkan ma awoodi weysa inay daba kacdo war hadaan awood u lahayn dad at least dawladaha shay u qayradaan sida waxa dhin umadan hana la raadiyo ee dadkan dadka dhibaateynay ilmaha yarka mustaqbalka dadka ka dhibaateen ha laga qabto bilaa aleeg sidaan waa saxariire midda kale waalidiinta Soomaaliyeed adinka laftirkiinu caruurtiinu meeshii aadayso ogaada inkastoo maanta aan ergaas dhihi karnay dad badan ay inaan dhaho ee khalad igu tahay in ogahay gabdho badan oo la karin in jiraan ama ilmo madax ay jiraan ilmihii iskuul u dirsateen timeka iskuulka laga soo baxay ee timeka dugsiga laga soo baxay ilmaha xisaabsada habeenkii gobolka markuu dhaco gabdhaha yar wareegay ee TikTok ku jira email walba socda email walba taagan ee darbi walba taagan email walba video iyo film ku soo duubay cashta isku day inay wax cashataan walaalayaal gabdhaha yararka hooyo walba wareer u waxa u joogtaa halaha yeedilin hala fariisato hawaaniso hooyo miyaha walaasha ashal inta lagu kufsaday walaasha kala ashal inta lagu kufsaday waa aragtaa wadada way halawdo hooyo gurigaaga joog hada ina video samaysta aragta gurigaaga ka badan barxadana ka badan jikadana ka badan ma fahantay bal gabdhaha adigu inay celisan isku daya
dowladda Soomaaliyeed walaalayaal hadda codkigaas maqashay waa in la gaarsiiyo oo la sheergareeyo dowladda Soomaaliyeed waa inay u istaagtaa inay xuquuqda gabdhaha yaryar ee masaakiinta lagu tumanaa magaalada Muqdisho ceeba ku dhacday Muqdisho ceebta ku dhacday waxaan idin dhihi lahaa reer Muqdisho ceebtan halaga hortago wax kale soo wadaa xamar wax kale ee xamar soo wadaa sababtoo ee xamar dad ceebeena inay ku jiraan u fahmaan barnaamij xamar lagu ceebeena wani ileeke see ku dhacda caasimad Soomaaliyeed oo dowlad Soomaaliyeed ay joogto maalin kasta gabadha lagu kubsado kiiska gabadha inta la dhigay mid kale inta la dhigay yaa niini socda dadaala hadaa xataa awoodi weysiin qarash ku bixiya aduumaad kala hadla dadkan soo siisiiba u dhaa sida xididii soo siisiiba guba gabigood sababta gabar walba loo kubsanayo oo daawanaysin maxay tahay mid kale ninka la soo qabtay gabar kubsado yaaba la xirin anay taladeeda taas waa hadii laga qaadana ninka markii la soo qabto war ilaahu rabbiyo ma ka jirtiin wuxuu gabdhaha ku kubsanaya googooya asagan gabiis mid kale hooyo walba Soomaaliyeed oo aragtay inuu ninka ka kubsaday gub hadaa rabto taraq adoo cid u sheegin ku daar ha dhinto بدل كأنت بوليس كنت أدعي وحبل وقبل وكيس كان تمام لقوا لديه لا هبل وهبل كحد لا يلي لا وحبل قضي وقبل معي ورتها كل شيء جماعة هذا أضاع لقاه في صدق وأنا أضو حقها جرها ستة والله بلا ما مرك قار هذا حنا ناخذ واحد ليس شرعي إنه واحد بيصير على غيابه مرك ولا ليال وأنا جبرك لا بقبر عن خبا ما فهمت إله وذا إسكال الدونك والله هو أوجع لها مرك عمل هذا يوم قبله كشمر أن كل ولا مكان لامي واحد صوت قبناي waxaasna adinka ay jiriyaan aniga adduunyo nadiif aan ku dhashay aniga oo balaayada ay ka jirin hooyadeen aniga igama walwali jirin laakiin balaayadan adinka abuuray inay maalmo gabdhaha sida kooriga dhabarka dhulta lagu xirtay naagi gabdhaha ka tigi waayeen adinka ku kalifay walaalayaal barnaamijkan aan ku dheeraado mar rabo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtiin waxaan idinka codsanay inaad codkayga sheergareysiin ilaahay hortiis ka soo hor wada jeesano oo hadda wax kale ku awoodeen inta masaajidaha hor fariisano aan habaarno khudbadaha lagu habaaro salaadaha lagu habaaro raggan gabdhaha Soomaaliyeed kufsanay ha lagu habaaro kuwa afduubanay sidoo kale ha lagu habaaro inuu ilaahay meel intuu nimankaas ku soo xiro ee ka soo bixi waayaan inuu alla ku xanibo ayagana waxaan leeyahay war joog nino wiil Soomaaliyeed oo codkayga haduu ku soo gaaro aniga dhageyso si fiican dhageyso war ma seegtaa tigi doontaa maanta daa seegto adduunka ummadda Soomaaliyeed dad lagu ciyaaro maaha ina iska dhaaftaan kula tirin lahayn waxaan marka dama xaqiiqada iska dib tagay because xaqa waa soo baxa ma fahanti xaqa feertu ka dilaacaya hadii maanta lagu waayo maalna lagu helayaa maalinka ummadda Soomaaliyeed ku helaana adaa yaqaan kulay meesha amagan salaheed marka waxa ku dhihi lahaa hadda intay sheekada dhanaanta allahaaga u toobadkan walaalahana iska daa marka gabar islaam u tagaysidna walaasha inay guriga joogto ku xisaabtan tii kul dhalatay in ayadoo marka la soo dhigay adana banaanka bishi waxa ku xisaabtantaa inay nabad ku hurdeen marka wiil walaalka oo nabad ku hurdi way adiga ku maqan tahay walaashiis marka inta saamiraashkay ku soo gabankabeynaya hooyo waxaan ahay khayrootay oo carootahan ila yaabinin walaalayaal because qof walba oo dumar uu dareemi kara dumarka dhibaatada sanadaan haysato hatta wadanka Kenya aan joogno aniga ayaamaha dhibaato kala taa gabdhaha laga sheegay inkastoo oo hal ilaabo mooyee inta kale aan xaqiiq loo hayn inkastoo ayaga naftirkooda dumarkooda dhibaato soo kale ay haysato aniga kaliya Soomaalida inay ahayn marka dadka warxamad shilka dadka qabyaalada ka shaqeeyo dadka fariimo badan raba in dadka u diro qabyaaladu waa mid halkaan istaajisa qabyaaladu waa mid maanta kaliftay in gabdhaheena la kufsado war wadanka waa la wada degan yahay waa la wada nool yahay cid walba qabiil way tahay laakiin qabiilkaaga aha ku faan hayso umada ha ku dhibin muxuu taraa hebel waay hadda wadankan meeqa aan joogno Kenya meeqa qabiil ay qabaan meeqa qabiiliyada degan meeqa qabiila ku nool waa dad nabada jecel israba maxaa ku ayagu isku kalsoon hadeeraba ha isnaa uurkaas ka nacay ku isnabad geliya marka isnabad geliya adinka laftigiina ina isnabad gelisan isku day inta barnaamijkan oo kala aan san ugu kulmayna hawada waxaan idin ka codsanaynaa codkiisa aa sheer gareysiin wixii qaldana comment igu soo dirtiin walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ilaahay waxa umar walba uga baryayaa inuu ilaahay noloshan maanta aan ku jirno mid dhaantin inuu ilaahay nasiyo marka waxaan idinka sii tagaa walaashii maamaadi oo idinka tagayso garab wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay idinkiis waxaan gaari doonaa sana ay dhibaatana jirin problem u jirin kufsiga u jirin insha Allah